waxa uu midbiyay qulubta mujtamaca Soomaaliyeed samafalkiisa oo lagu daray deganaantiisa barbar socota deeqsinimadiisa iyo waliba ixtiraamka aadanaha wiilka aan ka hadlayo waa halyeeyga ugu saameynta badan curadkii hawiye ee xaskul hawiye wiilkan ku soo koray koreejadii agoonta ee Allaha u naxariistay Dr. Hawa Abdi oo saameyn ku lahayd bahda caafimaadka ayaa waxa uu sameeyay wax aysan sameeynin asaagiisa ma jirin cid garab taagneed dhanka waalidiinta iyo waliba ehel iyo qaraabo bahdii bulshaweynta xaskul hawiye oo saameyn ganacsi miisaan iyo magculus leh wiilkan agoonnimada ku koray waxa uu qaatay abaalmarin ay siisay Somali Media Awards markii loo aqoonsaday wiil tayadiisa iyo saameyntiisa bahda social media uu ku leeyahay firfircooni iyo waliba galgal aad u xoogan TikTok-giisa waa Najiib Cali Cusuble YouTube-giisa ayaa ka sii daran beedkiisa waxa uu ku soo gudbiyaa waxyaabo bulshada had iyo jeer faa'iido u leh wax kale sunftadu horadkiyo hanid ka siisee abte kuma tabayso aragaagu hoyo qofka aan ka hadlayo waa Najiib Cali Cusuble halyeey nalka u shiday bahda waxbarashada isbitaalada dalka howlaha samafalka iyo social media wiilkan oo bahda saxaafadda halyeeyadii uu soo saaray lejan socdaal uu qayb ka yahay hadda waa mas'uuliyiinta ugu sareysa isbitaalka Samakaal gaar ahaan qaybta public relationka in la helo halyeeygan oo kale waxa ay ka dhigan tahay mid dhif iyo naadir ah mana jirto hooyo xambaartay haddii ay dhacdana boqolkii sanaba hal mar ayay dhashaa wiilkan oo kale hooyo Soomaaliyeed aabay abaa شعبي أبوه قاميو قرصت كنا يقلدمي hadda waxa uu hoggaansan yahay in dhawaan uu u tartamo xildhibaannimada halyeeyada reer Galmudug samafalkii iyo saa'idaadii tixgelintii iyo aqoontii dalkiisa uu ku bartay uu adeegay dalkiisa Soomaaliyeed waxa ay dhaxal siisay in maanta ay ku tartamaan isbitaallo badan oo ku yaala Muqdisho ma raba inaan magac dhabo balse hadda waa mishiinka kaliya ee dhaqaajiya isbitaalka weyn ee Samakaal Dr. Amiin Samakaal waxa uu bixiyay kiyaawo number diyeesha oo hool kasta ku wacan qabashadeeda iyo waliba halyeeynimadiisa xitaa lagama dareemayo wax aajis ah iyo waliba hurdo isagoo abooda in uu shaqeeyo muddo 72 saacadood ah Najiib Cali Cusuble waa macalinkaagii socdaal oo kule guuleyso oo gobonimo ku noolaaw geeskaaga leeyma keen baba